بسم الله الرحمن الرحيم sida loo samaysto PayPal balance leh adiga oo Soomaaliya jooga soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Charles channelka anaga la socotaana waa BoostPix maanta boqolkan wuxuu ku saabsan yahay sida aad diiwaanka ka aragtaanba PayPal oo ah e-wallet ama wallet lacagta lagu shubto oo sida loo samaysto waliba adiga oo Soomaaliya jooga Soomaaliya marka aad joogtid waxaan naqaanaa PayPal in macnaha inaad lacag ku bixisid ma ahan lacag ugu ma soo dhici karto sidaa darteed ma leh balance ma leh marka mushkiladaas ayaan rabnaa inaan xalino waan isla arkaynaa marka aan hore u gudubno soo dhawaada asxaabta mar kale aan si toos ah u galno barnaamijka sida loo samaysto PayPal balance leh adiga oo Soomaaliya jooga PayPal dadka aan garanayn haddii aan wax yar u fiiriyo waxa uu iftiimiyo PayPal waa meel ama bangi wallet ama bourse online ah oo lacagtu ay kugu soo dhici karto meel kasta oo dunida ka joogto marka waxaan uga baahanaynaa inaan samaysano si ay noogu soo dhacdo lacagaha aan online ka shaqaysano waxa loo baahanayaa inaad samaysato PayPal waliba marka Soomaaliya joogto sababtoo bangiyadeenu toos ulama xiriiraan meelahaas shirkadahaas ama shabakadahaas aan la shaqaysano ka yeelmiya laakiin PayPal cid kasta ayaa yeesha oo aad lacag ugu soo diri karto marka waxaan rabnaa qodobka koowaad inaan isla aragno marka liiska wadamada PayPal uu ka shaqeeyo PayPal horta xagee ka shaqeeya in asla aragna yarana PayPal wuxuu ka shaqeeyaa wax ka badan 200 oo wadan ayuu ka shaqeeyaa wax ka badan sidaa darteed waxay ka dhigan tahay Soomaaliya waa laga ogol yahay Africa waa tan Soomaaliya ku jirta Americas Asia Pacific Europe waa adduunka oo dhan PayPal meel kasta ayuu ka shaqeeyaa okay PayPal markaan aragno inuu meel kasta ka shaqeeyo waxaan rabnaa marka inaan aragno what's next ama xayawaanka ku xiga aan raba inaan isla aragno idin la wadaago wadamadan marka tirada badan ee adeerkiisa sida uu PayPal ka shaqeeyo waxa ay u qaybsamaan 3 nooc marka 3 nooc ay u qaybsamaan wadamada PayPal ka shaqeeyo aan isla aragno sababta PayPal wuxuu kala sameeyay category buu sameeyay wadamada oo mid kasta adeegyo gaar u siiya qaab waxa jira oo la shaqeysto marka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan aragno wadamada ay ka mid tahay iyo sida uu waxa weeye ula shaqeysto okay iyaga iskala marka hadda bogan aan akhrinayo oo aan waxa weeye adul taaganahay waxa ka bilaabanaa waxa jira wadamo lagu ogol yahay PayPal kaaga inaad lacagna ku dirto lacagna ay kugu soo dhacdo waa sidii aan rabnay marka wadamadaasi waa wadamadan tirada badan Andorra Argentina ilaa soo wadamadaas u dhan way marka kuma jirto Soomaaliya wadamadan waxa ku jirta Kenya Kuwait ilaa wadamo badan ku jira marka wadamada Soomaaliya kuma jirto okay wadamadan liiskan kalena waxa weeye isla intii oo kale laakiin waxa u dheer iyaga automatic transfer bay leeyihiin oo si automatic ah PayPal ay waxa weeye lacagta ku transfer garanaysa alle hada adin ba yeeraya laakiin si wadana codkayga hadii aad maqlaysaan okay wadamadan marka automatic transfer ba u siyaada ah ila ma quseeyaan marka waa dhowrkaas wadan iyo wadamada u dambeeya oo ah lacagta inaad ku bixisid ma ahan lacag ugu soo dhici karto kaliya waad ku diri kartaa wadi wadamadan marka bay Soomaaliya ku jirtaa iyo Ethiopia iyo Eritrea Djibouti wadamadaas oo dhan waxay ka mid yihiin groupkan marka
okay waa ta Soomaaliya marka Tanzania waa tan Togo wadamo badan baa halkan ka buuxa marka PayPal marka ku samaysay Soomaaliya liiskaanaad ku jirtaa oo lacag kuma diri lacag kuguma soo dhici karto laakiin waa ku diri kartaa sidaa darteed balance ma leh account-kaaga PayPal balance yeelanayo marka saddexda nooc bay u qaybsamaan wadamada PayPal ay gashay marka annaga liiskan waxaan rabnaa marka wadan waxaan rabnaa inaan ku samaysano marka liiskan ku jira Soomaaliya marka kuma samaysano sababtoo annaga ujeedka PayPal u samaysano lacag inaan ku dirno kaliya ma waa inaan lacag ku helno noogu soo dhacdo lacag inaan ku bixin karno marka waxaan dooraynaa qaybta automatic ah marna ka soo qaybta koowaad wadama baa wadan ka dooraynaa qaybta koowaad oo ah waxa weeye wadamada lacagtu aad ku heli kartid ama aad ku diri kartid linkigu waa kan hadii aad u baahan tahay waana soo dhigay hoosna soo dhigay meesha aad ka eegi kartid okay wadamadan marka ka doonto ka samayso China waxa doonto Hong Kong meesha aad joogtid laakiin anigu Soomaaliya ayaan joogaa dadka Soomaaliya joogaa waxa u fudud Kenya inay ku samaystaan marka tusaalaha waxaan ku bixinayaa marka inaan hadda Kenya ku sameeyo aan ku soo noqdo marka qodobka ku xiga waxa weeye sidee marka PayPal Kenya loogu samaystaa macna adiga oo Soomaaliya jooga PayPal Kenya sida loo samaysto adiga oo Soomaaliya jooga okay waxaan tagnaa marka window cusub inoo soo fur PayPal qor marka PayPal ku qor kadib okay ila socda PayPal cusub ayaan samaynayaa oo si toos ah lacagtaada ay kugu soo dhici karto hadhow boggaan ku keenaya boggaan markuu keeno login waxa loogu talagalay dadka account hore u lahaa adigu sign up baad oranaysaa okay sign up marka tiraahdo waxaana kale haduu security-ga ka gudbisaa I'm not robot kuleeyahay baad oranaysaa waxaana buuxinaysaa James waxa la yiraahdaa alaabtan way qiica banaanka sii deynayso amal oo kale okay wuxuu ku weydiiyay marka doorto halkaan marka waxa gelinayaa number 25 oh sorry kan yorta maya numberka ido waxa ay door horta Kenya okay Kenya ma numberka waxa weeye wadanka marka hore noo doornaa sorry Kenya nu maleeyay marka hore alanka Kenya waa ka marka halkaas aanka ku soo fuulaya aanka marka ku soo fuulo wadanka ku dooraya saxda ah u baahnay marka 254 bay ka bilowdaan numberada Kenya waa qoraya numberka marka wada ka qarinaya qof caadi oo aan kood ku dirsanayo jira marka waxa laga rabaa adiga qof inaad si diyaarsatid Kenya aad koodka ku dirsatid sababtoo PayPal marka sameeyay marka koowaadba waxa lagu weydiinayaa numberka marka ilaa dirtid oo numberka verification lagu sameeyo ma gudbi kartid marka qofka waxaan ka rabnaa numberka kaliya wax kale kama rabno koodka hal mar ku dhacaya mar dambe numberkiisa uma baahanayn okay marka aniga hadda qofka ay diyaarsan numberka qoraya marka okay marka adiga numberka waa ka qarin doonaa sababtoo ah qof waxa waa privacy way qofka iskana numberka toosan okay numberka waa qora okay waa kood baa ku dhacay qofkii baan marka oranayaa iso kood okay haye iso dir sawir ahaan igu soo dir koodka okay waa wacay si live ah idinku hadda aan waqti ku jira marka screen shot ahaan ama sawir ahaan ama koodka ayuu isoo diray qofkaas markuu isoo diray halkaan gelinaya marka waa la socotaa baa filaya wax kasta waa transparency wax la qarqaranayo ma jiraan okay qofkii hadda ayuu isoo diray wuxuu isoo diray koodkii 8826603 koodkan laftigiisu marka waa one time use wax macnaha mar dambe loo baahanaya ma
waa hal mar. Okay, intaana marka ka reeb halkaan uu keenaya mar email addresska marka aan ku samaysanayo waxa weeye emailada halkan ka soo baxay waan ka qarinaya. Email waxa jira marka aan rabo inaan isticmaalo oo aan ugu talagalay email kana isticmaalaya oo tijaabo kaliya oo isticmaala ugu talagalayba u sameeyay postpix annaga ma isticmaalo gmail.com oo waxaan isticmaalnaa wuxuu ugu celiyay iskuulid. Okay, annaga waxaan isticmaalnaa marka emailkayga tooska formalka ah waa charles@postpix.com, laakiin kan postpix@gmail.com way marka ma aha gmail aan ujeed kale u isticmaalo. wax ka soo qaadaa magacana ku buuxinaya gmail kan iyo qoran Axmed Ali Muhammad magacaaga gelinaysa halkaan Maxamuud ka last name ka waxa gelinaysa marka last name ka waxa gelinaysa halkaan last name ka gelin. Okay, password gelin marka password bal rabaa inaad gelisid fiican oo adag oo iskugu jira nambaro iyo xuruufiyo. Okay, intaasoo si flexible ma inaa intaa buuxisid. Emailkaaga geli, kadib magacaaga geli, magacaaga labaad saddexaad geli halkaan, labada magac oo horeeyana halkaa geli, password geli, kadib next. Intii ka horeysana waa soo aragtay oo ahaa in code aan ku dirsaday number Kenya jooga. Okay, marka anigu Kenya hadda jooga qofkii jooga camal oo kale ayaana marka waxa la iga rabaa inaan halkaan buuxiyo marka sidee u buuxinayaa marka. Okay, waxaan u buuxinayaa marka waxa la iga rabaa marka waa inaan sameeyaa marka fake qofkii waxa muhiimada qofkii caadiga ah uma baahna xogtiisa random address in Kenya waa oranaya ka soo qaado fake generate Google kan ka raadinaya qof fake ah oo mutaqana random oo xogtiisa Kenyana oo aan isticmaalo. marka xogtaas aan buuxinaya hadaan ku qanco aan ku noqdo marka wixii la iga rabay xogta ugu rabo waa maxay passport numberkaas kaagi ID numberka halka ka soo address line ka horta buuxinaya passportka waxa uu soo noqonaya address line ka marka waxaan ku buuxinayaa ma isticmaalina kan. Okay, kana isticmaalina kaasi wuxuu ugu yahay something like address line kana isticmaalaya wadanka magaalada waa Nairobi code-ka waxaan isticmaalaya +254 date of birth iska buuxi waxaan bishii saddexaad 1991 ka soo qaad passport numberkan passport numberkan waxa ku samaysaa halka ka noqo maadaama passport ma siin waxa dhahdaa fake passport marka kor musakin Kenya passport number kan Kenya kana naga badan sawirkan waxaan soo number ma passport number ka geli marka 00076
bla 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 waxbaa gelinaysa adiga oo mataqaan waxaan oo dhan hadda anaga nagu soo noqdaan ma rabno waxa dhow wax ka soo noqonayaan maaha oo waxa inta gelisid aad tabta faraha uga qaadis okay passport number baa geliya marka wadankii Kenya ay dooran nationality-ga address line baa igu jira magaalada city Nairobi baa igu qoran postal code +254 okay login-ka ii daawan leeyahay halkaan waa saxiixaysa waxa leedahay waa tigraynaysa kadib wayna geenayaa akoonka ayuu inoo sameynaya PayPal-ka okay you are in what's next PayPal login sameyno okay ujeedaan waxa inoo sameysan PayPal-ka hadda aan sameynaa ayaa inoo sameysan tabta marka ku keena marka halkaan ku keenaya ama marka soo gashida toos baan hadda ugu soo galay PayPal balance waa ujeedaan marka waa zero PayPal balance waa uu leeyahay settings kiisa dartiina fiirisid waa kan marka Ahmed Ali Mahmoud waa nagi waa magac hadda ku sameystay waa kan addresskii aan sameeyay iyo wixii hadda aan buuxinayo ka okay Kenya merchant ID passport number iyo wixii halkan ay ku jiraan xogtaada waa ka okay sembre ku soo noqo account-kaaga marka waxa loo baahan yahay inaad aad ku xiratid wallet waxaan ka wadaa bank sida loo waxta marka tusaya PayPal-kaaga hadda saas uu sameeysan yahay si aan wallet marka si aan u xirano marka bank waxaan u baahan ama link kaar u xirano labadan option baa jira marka kana aad u isticmaalaysaa linka kaar baa leedahay link kaar marka dhahdo waxaad haystaa marka Mastercard baa marka halkaan gelinaysaa credit card number ka ku qoraysaa numberka dheer ka marka ku qortid xagaan waxaad doonaysaa wuxuu yahay Mastercard way salaam qad xagaan marka Mastercard marka dooratid halkaan waxaad gelinaysaa marka numberka dheer oo Mastercard-kaaga xagaan waxaad gelinaysaa expiration date-kiisa ama meesha uu ku qoran yahay kaarka ku qoran yahay halkaana waa saddexda number oo dhinaca kale oo qoran code-ka waxa way kaarka kadib halkaan waxa kaaga soo baxaya address-kaagii linka kaar baa leedahay wuu ku xariirsamaya oo saas ma taqaanaa link u ahaanaya hadhow Mastercard-kaaga marka lacagta waad ka diri kartaa oo halkaas uu xariirsanaanaya waxa soo haray marka anigu hadda ku xirimayo kaar toos ah kaarkaygu meel kale igu xiran yihiin account-kan oo dhanba waxaan sameeyay qayb tijaabo ah oo shaqo ah macna idinka ku tusaa anigu PayPal-kan ayaan isticmaalaa okay linka bank marka waa option kale oo ka duwan marka waxa isticmaali karaa inagu hadda ma isticmaali karno oo wadamadan hadda Kenya ku sameeysanay Kenya bank toos ugu ma xiri kartid wuxuu ku ogol yahay laakiin bank Mareykan ku xiray hadda uu noo ogol yahay account bank Mareykan inaan inta ku xirno hadhowna lacagta bank Mareykan aan toos ugu dirno uu naga yeeriyo laakiin naga yeelimiyo bangi Soomaaliya iyo mid Kenya midna laakiin dadka ku sameystay Soomaaliya kale wadamada Mareykanka ama Europe ama meelahan kale wadamadan kale ku sameystay oo kale halkaan bangigooda ama debit card-kooda wuu xirmi karaa marka waa kala duwan waa kala feature way isku nooc ma adiga marka kana ku filan PayPal-kaaga waa ku sameeysan yahay marka hadhow aad rabto inaad lacag aad transfer gareysid saanad oran kartaa kaararka ugu xiran bay ku xiranta marka kaararka hadda waxay ku jiraan baa lagu leeyahay maxaad transfer gareysaa kaararka marka noogu xiran Soomaaliya transferka ma ogola oo lacag aad kuma dhici karto laakiin balance-gii uu ku shaqeynaya markaas marka waxa la sameeyaa marka
qof baa loo diraa PayPal Kenya haysto oo kale oo meel kale joogo kale halkaan ku tusaya send and request qof ayaa u diraysa lacagtii PayPal-kii qof markaa u dirto marka qofkaasi asagu wuxuu haystaa meel ama bangiga ku xiran kara ama kaararkiisa lacagta ugu dhici karaan ama PayPal-ka Kenya wuxuu ku dirsan karaa M-Pesa laftigiisa waa la isku xiraa waa la isku xiri karaa M-Pesa iyo PayPal-ka marka qofka Kenya jooga PayPal-ka M-Pesa buu kugu dirayaa kadib qofkii M-Pesa markii uu lacagta ku helo adigu toos kugu soo dirayaa laakiin inaga had mushkiladii wali way jirtaa ahayd inaan lacag aan PayPal kala bixi karin sidoo kale waxaa jira dad ka caawinaya oo adeegaas ku siinaya wax yar khidmad inta ka goostaan lacagtooda PayPal ahaan inta ay ugu jirto ku diraya oo yaani Muqdisho joogaba dadaaliyo ku shaqeystaa jira waxaas dad raadisi marka adiga ku taala qaabka maraysid laakiin muhiimadu waa inaad PayPal shaqeynaya leedahay okay marka rabtid marka PayPal marka rabtid qof ugu dirtid lacag qofkaas ahaado qof aad rabtid inaad lacagta ku bedelo oo ugu soo diro hormuudka ama EFC zaadka ama sahalka inuu kugu soo diro hadii aad u baahan tahay qofka waxa leedahay ii sheegay PayPal-ka kugu soo dira email-kii ku sheegaya mar email-ka PayPal-ka aan ku sameysanahay oo kale anagu hadda kana ku sameysana waa kan ku jirna hadda saas u sameysay marka qofku wuxuu markuu ku soo qoro email-kiisa halkaan gelinaysaa next baa leedahay payment baan dirayaa baa leedahay moqt next marka dhahdo marka lacagta qoraysa ay u dilaysaa lacagta qoraysa waxa leedahay salaano kale $20 oo kale markaas kale marka ever taa marka ilaa halka gaarayso marka halka buuxsanta ever kala ku daryaday 200 tahay qaabkaas loo wada okay marka $20 baa qoraysa oo Mareykan USD ah kadib waa soconaysa continue wale add note waxa way wax yar faahfaahina lacagtan salaano kale maxay ku saabsantay isoo bedel baa leedahay ama waxa leedahay EFC ahaan iigu soo dir si aad taqaanaa lacagta hadhow isagu markuu ka arko transaction-ka loo dareemo continue baa leedahay qofkii marka lacag saas ugu dhacaysa waa marka lacag tiraysid oo aad PayPal-ka lacag ku tiraysid laakiin dadka bangiyada haysta ama kaarka uu xariirsan yahay toos bay wax u tagayaan marka hore bangiga ku xariirsanayaan bangiga halkan ka muuqanaya kaarka halkan ka muuqanaya kadib waxay sameynayaan transfer bay leeyihiin lacagta waa ugu dhacaysa oo balance aad dul tagaysaa sida hadeer oo kale balance lacagta halkan kaaga muuqanaysa lacagta kugu jirta kadib transfer funds baa leedahay waxa ku soo baxaya kaararkii toos baad ugu rogaysaa lacagta marka waxaan filayaa inaan dhamaynay qodobka u dambeeya waa maxay sida PayPal loogu xiro card bank ama bank account waa inta marka qaabkan loogu xiro way marka rabtid inaad ku xirtid PayPal marka waxaan filayaa inaad fahanteen waa mahadsantihiin waxa way waxa sameysaan muuqaalkan marka muuqaalka xigana dabcan taxanaheena baa inoo socda waxaan filayaa inaad si fiican fahanteen marka aan waxa way waxaan sameynaynaa fadlan muuqaalka like garee subscribe garee kanaalka nala soco muuqaaladeena xigana la soco sidoo kale buugga hadii aad u baahan tahay buuggaygana waad iibsan kartaa description-ka ayaad ka waxa way kala dhigi kartaa waxa way aad ka dalban kartaa WhatsApp-ka aad ka iibsan karto waa buug e-book aan soo saarayo aad wax badan ka faa'iideyso marka hababka online-ka lacagta looga sameeyo ayaad ka faa'iideysaa wax ka helsa description-ka waa mahadsantihiin